bismillahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada waraysi aan la yeelanay jamaal miicaad allaale oo ku sugan magaalada boorama oo aan ka wareysanay xaalada guud ee gobolka. jamaal kusoo dhawow shabakada quljaadnaad. aad baad mahadsantihiin waan ku dhawahay. jamaal bal marka hore waxaad nooga warantaa xaalada guud ee gobolka siday tahay. runtii xaalada guud ee gobolka inkota waa iska fiicanta, waa caadi. nabadgelyadu dadku nabadgelyadu waa caadi, waxaan dee intan eriyadan xadadka iyo waxyo aada loo caabsoodo aanan ahayn. nabadgelyadu sida kale way fiicanta, laakiin kulley cabsi baa jirta, kulley dadku way baqdaan, cabsi xoog baa jirta. waayahay jamaal dhawaan waxaa shir jaraa'id qabtay odayaal iyo waxgarad la sheegay inay xukuumaddu soo abaabushay oo kasoo jeeda deegaanka quljeed. arrinta maxaad ka ogtihiin? wallahi horta anigu t v-ga man ka aragnay kawdhi. nimankuna maaha nimankii reer dulubde mataliyey ma aha. reer dulub 7 oday iyo 29 kale oday bergeta guddiga saala u taliya, ma garatay? marka annaga nimankaasi wax alla wax ay muxuu ahaa magac ayagay ku hadlayeen mooyaan waxaan ka ogahay ma jirto. namada matalaan runtaa wanaagsan muxuu ahaa dadka degan ama reer dulubka degan fulamboorama tuquljeed muxuu ahaa furo xariirad ilaa bool xariirad ilaa iyo zayda abtu toqoshi halkaa ugu dambeysa deegaanka intaa leega xiriirsan iyo intaa leeg oo muxuu ahaa Ethiopia ya ma matalaan nimankaasi. dadkaasina iskumay imanin oo ma odhanin maxay ahayday maxaa inoo dana ama waan kala noqonay. mid kumana jiro odayaashii reer dulub mataliyey markii la dooranayay suldaanka dhowr 40 oday ee quljeed fadhiyey, nin keligii kagama jiro nimanka hadlayay. runtii niman xagga dawladda ka socda bay ahayn, siyaasiyiin bay ahayn iyo qolin deegaankana waxa weeye dadka waxa u taliya odayaal dhaqameedyo. odayaal dhaqameedadeediina sida la ii sheegayay maanta jawaabtii way duubeen. waxaana aan jecel lahay inay soo baxdo kulli daawan doono berri. waxaa wuxuu oday dhaqameed ahaa dhan isugu yimid. marka waxa weye nimankaasi waa niman ilaashanaya muxuu ahaa dana yar oo gaar ahaaneed. marka ma matalaan mana matali karaan. suldaankana waxa doortay suldaanka waa dee beelo ballaaran oo 17 ugu yaraan ka kooban oo magta u kala bixiya. 17ka dee reer dulub waa muxuu ahaa jilib kamida 17kaas. jilibkaasi dee kalsooni waan kala noqonay. dee muxuu ahaa hadday yidhaahdaan horta afartooda loo keliyi dadka ma oran karaan, kalama noqon karaan. muxuu ahaa dee waxba ahangalaan allaguma dhutiyo oo suldaan kama qaadi karaan. waxaa suldaanka ka qaadi kara oo keliya gandihii u fadhiyey ee doortay unbaa suldaanka kala noqon kara kalsoonida. anigu se waxaan u arkaano nimankan hadalkooga afnoolina u ciyaa ayna hadlaan hadalkooga inuu yahay. mida kale soomaalida waxaa ku maamahdaa niman talin jirin hadduu taliyo niman tegi jirin baa tega. laakiin waxaan u sheegayna oon leenahay ninkii talin jiray niman talin jirin hadduu talinayo ninkii talin jiray tegi maayo. ninka aan talin jirin inuu taliya doonayaa tegi. waayay waxa weye marka nimankaasi annaga nama matalaan. walaa wasiir ninka sheeganaya walaa muxuu ahaa nin kale sheeganaya xildhibaan wax nooga yaala reer dulub ma matalaan magacooga. runtii haddaad rabto dhalinyaro badan oo saaka rees ku qabtayna way jiraan iyaga laftoodiio beeninayay. marka nimankaa waa niman oo ninkaa wasiir ku-xigeenka ah oo shaqadiisii garanaya oo baakin garaynayo. waxaan u arkaa iskeenka waxaan afka ingiriiska lagu yidhaahdo muxuu ahaa la yidhaahdo maxay ahayd scan devised by a full politician or ama poor politician waxaa la yidhahdo. waa qorshe yar iyo shirqool yar oo uu soo maleeyey ama uu soo dhigay siyaasi aan kalsooni qabin ama nacasa. marka runtii haddaad rabtana ninkaasi besre dib taageero kama haysto. waayay jamaal waxaa la sheegayaa in wasiirkan wasiir ku-xigeenkan markaad carabka ku dhifatay xasan dambeel uu maanta xirxiray qaar kamida salaadiinta beesha reer dudub oo qaar kalena amray in lasoo qaqabto.
arrintaas maxaa ka jira iyadna way jirtaa shalay ayay doonayeen inay jawaabaan waa odayaashii waxay ahaayeen ku jiray qaar kamid a muxuu ahaa gendigii doortay suldaanka kadib nin buu usoo diray nin aadan culaagta la yidhahdo runtii waa lala yaabay aadan culaagta nin bacmishanaya wax siyaasad geliyaba iyo waxani hawlahaniba aada loola yaabay kuma taliya reer maaha caaqil maaha suldaan maaha oday maaha waa nin bacmishanaya iska shaqeysa inuu iska shaqeysa u wanaagsan aadan laakiin isaga ayaa askarta ku socotay waxaana la xiray caaqilkii muxuu ahaa jilib kamid jilibada reer wadaala ugu waaweyn oo jilibada ugu waaweyn oo reer wadaala oo la yidhaahdo muxuu ahaa balabaalis yuusuf xaaji oo allah naxariistay axmed xaaji bahdoon adeer u ahaa iyo nin kale ayaa la xiray marka runtii waxaana loo xiray sideed u qabataan halkaa way ka baxsadeen oo horta waxa la ii sheegay ilyas oo kale isagu meesha uu ka tagaya ilyas jaamac jibriilna sidaa unba eegana xunsiba madaxa way ka baqeen buurihiisana sidiyo way gaarigiisa usa kaxaysteen laweynaha dishiri waayeen laakiin runta arrintaasi arrin aada looga cadooday bay ahayd wax wanaagsanna runtii maaha marka waxa weye waa wax khalada oo runtii aanan meesha banaanayn meeshana ku jirin in la xidhxidho odayaal dowrkeeda matalaya waayahay jamaal beesha reer dudug waxay ahayd beeshii sida weyn caleemasaarkii suldaanka uga qayb gashay ee degaankeedana lagu qabtay imikana waa kuwan qaar kamid a sidaad inkastood sheegtay inayna wada maselin beesha waa kuwan imikale qaar waan kala noqonay arrimahan dadka caadiga ee beeshu siday u arkaan horta aad baa horta laga wada xanaaqay runtaa wanaagsan marka runta laga sheegay ku boora ma jooga iyo ku siilacjooga ku xiriir jooga waa aad baa laga xumaaday xataa gadabuursigii kale ayaan camla yaabay muxuu ahaa aragtay waayo qofku marka uu suldaanku hadduu suldaan reer duduba ahaan lahaa ha inkastoo anan meesha xitaa ay ka hadlayeen reer duduba aanay u dhamayn oo ay jilida qaar ka maqnaayeen waxa weeye hadduu suldaan reer duduba ahaan lahaa laakiin suldaanta intaasoo 17 reer dalteen kalsoonidii baan kala noqonay ana waxaan arkaa u nimadabka iska xumeeyo sumcadoodii buu ku ciyaaraya muxuu ahaa oo aan waxba ka qaadi karin sabab waxaa tirahdaa afxumo muxuu ahaa nabadna way kaa fogeysaa colaadna waxba kaagama tirto suldaanka waa la doortay waa suldaanka iyagii oo qojeed baa lagu doortay dadkuna way taageersan yihiin jawaabtana waxaad ka arki doontaa xajeeda kale kuley la soo duubay odayaal dhaqameedkii beesho ya ay maxay ahayday ku jawaabayeen baad ka arki doontiin laakiin waxa laga yaqiiqsoodo waxaan umaleynaya dadka madax caqligii baa ka suuray waxay kala garan laayihiin dhaqankii iyo siyaasaddii bay kala garan laayihiin dadku waxaase ila tahay fikrad ahaan waxaan leeyahay way ka waraaceen qolada hadashay way ka waraacdee madaxa suldaanka waan kasoo horjeednay ba ujeedeen saasaa u qurux badnaan lahaydi waayahay dhinaca kale haddaan kula baydho degaanka quljeed ee ay beesha reer dudub degaan baryahan dambe waxaa ka jira colaad baa ka jirta colaadaasee dadka u saamaysay yaad u malaynaysaa runtii horta maalintii ay insilankuna uu dhacay horta aad bay u saamaysay kawle laakiin waxa weeye dee saamaynta wax ku talagala sida aan muxuu ahaa aan meesha ka arkay ma ahayn ilamana ekayn nimankuna jaad bay soo doonteen baa layidhi way iska socdeen dee nimanku waa talku waa meeshoodi iyo magaaladoodii cidkoo dirsan mayso waa magaaladoodii marka waxa weeye muxuu ahaa rasaastana runta marka la sheego de iyagu dhowr xabay rideen qolada ciidanka inta badan ridaysay rasaasta oo dhulka ku furtay laakiin dee horta way saamaysay oo dadki way qaxeen way barakaceen magaaladu cidnay ahayd dhaxantii iyo brolomiskii muxuu ahaa labadii cisho habeenkii ayuu hoydeen buurihii iyo cidladii ya unbaa taaliskalina kalena laga faa'iidaystay laakiin dadku waxaan ku sheegayaa waxaa la ii sheegaya sida anu warkaan ku hayo nin odaasha qurjeed kamida macalin ah oo siciid geesaane la yidhaahdo iyo nin kale in ay diideen war waxa naga daaya la xidhay marka dadku way ku kala jabsanaayeen runtii aad bay u kala jabsanaayeen markan canjeeda la qabanayay oo niman badan oo la xidhiiday waxay ii sheegeen in ay diideen oo xitaa yeeritaanka ay diideen waayahay dhawaan waxaa jiray barnaamij loogu magac daray nabadda oo qaar kamid a waxgaradka iyo odayaasha salaadiinta ee gobolka awdal ay buurma ku qabteen oo lagaga hadlayay dhinaca nabadgelyada
arrimahaas oo xogaa lagu durayay suldaankan iyo arrimahan jabhadda iyo lagu durayay arrimahaas see dadka gobolka u arkaan horta de waa habeenkii tv ka daawaday laakiin de wax weyn lagama soo qaadin oo arday baa soo aabisay sideedaba ardayda waxa weeye jaamacadda horta waa jaamacaddeenii dadka ugu badan baana ku jiraan marka wixii calqalad nacamtee dadka jaamacadda iyo dad baa ka tegay awgeed in loo maxaa yeelay hawshan ay u sameeyeen nabadgelyo gobolka way ka jirtaa oo habeenkii meeshaa doon mari kartaa ma garatay marka waxa weeye kolley horta ujeedda ay ka lahaayeenba adu infact wax dee khaladoo iiga muuqday nabadgelyada ay lahaayeen mooyaane markaan anu yar eegay infact ismaan lahayn wax kaliya gees kala soconayaan iyaguse nabadgelyada lakin kolley waxaad ogaataa shay kastoo la qabtaba interest baa laga wataa kolleyba oo cid baa baasin ka ah interest ka wadata kaa ku darso wax kasta marka loo dhigayo qaar baa si kale u dhigaya dad baa jira ka dhex faa'iideysta dad baa jira interest ku wata oo interest uga dambeeya oo muxuu aha waxba iyo kalumi iyo waxba caynkaa jirto laakiin waxa weeye runtii cabsidana dadku iska sii nuglaanayaan una cabsi xoog lihi magaalada kama sii jirto magaalada 24 hourska waa la maraa meesha dawlad wax jira dhibaato ka dhacay ma jiraan habeen buu incident ka dhacay habeenkii dabadeedna wax ka dhacay ma jirto laakiin cabsida dee halkan baa la joogaa halkan baa lasoo maraya halkan baa cayn kaliya cabsidaasi way jirtaa waayahay jamaal maxaad odhan lahayd beesha reer dudub iyo guud ahaan shacabka reer awdal imika ku dhegeysanaya maxaad kula talin lahayd beesha waxaan kula talin lahaa beesha dudub way iska ogyihiin horta talada cidna muxuu ahaa nin walba uu garanaya infact dantiisa iyo danta guud ma garatay muxuu aha waxa weeye beesha reer dudubna maanta warkoodii badnayd ba dee way soo gaari haddii la idhaahdo laakiin waxaan ohan lahaa dadka lama marin habaabiyo dadka beenna iyo dhalanteedna looma sheego inta qof dan doonaya ayaanu idinlu geynin dadku way degan yihiin waa kaa wadanku degan ee dalku degan dee qof muxuu ahaa boos ilaashanayay inuu kusoo gabdo dadka ma aha dadkas waxaan kula talinayaa waxyaabihi waxu dhimaya inay iska daayaan waayahay sumcaddooda la jibaya waayahay jamaal aad iyo aad baad umahadsan tahay waayin adaa mudan